waxaan rabaa salaan kadib waxaan rabaa halkaan aan fariin uga diro dhammaan shacabweynaha gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda Garowe waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeeyay ee bishii barakeysan ee Ramadaan isla markaana la filayo inay bari noqoto maalin ciida insha Allah taala waxaa magaalada ka socda hawlgallo ay wadaan ciidamada amnigu kuwaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka shacabka ku dhaqan caasimadda iyo dhammaan gobolka oo dhan waxaan fariinta u diray waxay tahay in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka ee shaqada haya si ay u gutaan waajibaadkooda qaran isla mar ahaantaana ay ugu fududaato ama la isaga ilaaliyo dhagaraha ay dhici karto inay jiraan kooxo sharwadayaal ah insha Allah taala waxaan rajaynayaa nabad ku ciidno nabadna ku barbaarno haddii alla idmo taas weeye qodobka labaad waxa weeye dhibaatadii maanta ka dhacday xasuuqii dadkii shacabka ahaa magaalada Laascaanood loogu geystay kaasoo ay fuliyeen kooxda jeegaanta ee sanam ay ka fuliyeen magaalada Laascaanood halkaasoo lagu laayay shacab kayagii arintaas aad iyo aad baan uga xunnahay ilaahay waxaan leenahay intii dhaawacantay caafimaad ha siiyo baan leenahay haddii waxay ila tahay gulufku waa dhaga qabaa ma sii ahaan doono shacabkayaga dhibaatada lagu hayo ma sii jiri doonto haddii alla idmo waqti kooban inuu isbedel ka dhaco ma rajaynaynaa ciidamada qalabka sida ee ku hawlan xoreynta sool waxaan leeyahay tix yar baan rabaa inaan ku dhufto ara gabdhihiina sidii loo galay guluf u heensaysta arageera dhaxan baa jiray fooda soo geysii galiya balcar gabayo xalaydin baday gudub weydaartay insha Allah taala gudub weydaar doontaan dhaqso guushaas waa rajay doonaa intaas ku soo kooyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii su'aalaha way weydiin kartaa mudane waxaa jirta qaar ka mid ah culimada Puntland waxa ay sheegeen in ay wadaan fariin nabad ay ka wadaan ganacsatada culimada iyo culimada Soomaaliland ay leeyihiin waxaan damaanad ka haysanaa musabbixi wada hadal baan ka kala nabadeed arinta dawladda Puntland ay qabtay waa arrin fiican hadday Muuse iyo ganacsatadooda iyo culimadooda ay fariin nabad ka hayaan dee Muuse waa yaqaanaa guriga uu leeyahay hageeyay markaana waxaan u waxirnaa harareen labada gaataba oo sakaysan Muuse reerahooda hageeyeen markii halka geeyaan waxaanu ka wada hadlaynaa sida aan wada noolaan lahayn laba dad oo walaal ah oo Soomaali ah baan wada hadlaynaa markaas aan wada noolaan lahayn laakiin gurigaagii baan joogaa waa ku qabsaday dadkaagii baan leynayaa nabad iyo wada hadal baan ka wadaa riya maalmeed weeye taas wax naga noo yaala ma annaga iyo Muuse waxaan ku wada hadlaynaa duusan ka bixin gobolka Sool oo ka bixin dhulka yaga xabad weeye wax ka dhaxay ma jiro intaas aan ku waa kale qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya waa isku dayay in arinta wada hadal lagu dhameeyo oo soo dagaalayeen arintaas Soomaaliya waxa ku mahmaahda in la gardaran haday ooyaan in la garla maxaad moodaa Muuse iyo kooxda jeegaan iyaga soo duulay kuna soo duulay dalaysan lahayn iyo dadkooda hayn oo rabeen inay xoog ku goostaan haddii qaramada midoobay ay xal wado harareen oo hageeyeen laakiin inta ay guriga iyaga joogaan mar labaad baan ku celinayaa dhulka anaga leh dadkana waa dadka iyaga nina kala gurtay mayno dawladdu ma qofkeedu kaas u taagan yahay